kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal meel waliba aad joogtaan iyo si waliba codka idiin soo gaaraya kusoo dhawaada barnaamijkeena maanta waxaan kusoo qaadan doonaa waxyaabihii ugu dambeeyay laga qoro suuqa iibsiga kulmada xiisaha badan oo ay ciyaari doonaan kooxaha Arsenal iyo kooxda Manchester City waxyaabihii ugu dambeeyay laga qoray ayaan kusoo qaadan doonaa kusoo dhawaada mar kale intaanan muuqaalkeena u guda galin waxaan idinka codsanaynaa inaad share like subscribe inoo tiraahdaan asxaabtana u gaarsiisaan aad u mahadsantihiin kooxda Arsenal ayaa waxay la ciyaari doontaa isla markaana ay soo dhaweyn doontaa kooxda Everton ee macallin Sundaja kulan ka tirsan horyaalka Premier League ee dalka Ingiriiska kaasi oo noqon doona kulankii ugu dambeeyay oo ay ciyaari doonaan kooxda uu hogaamiyo macallin Mikel Arteta hadii kooxda Arsenal ay guuleysato guuldarrada ay kaga soo gaartay kooxda Manchester City kooxda West Ham sidaas waxay ku qaadi doontaa horyaalkoodii Premier League ee kasoo wareegatay muddo 20 sano ah si kastaba ha ahaatee Arsenal Everton ma fududa oo macallin Sundaja form fiican ayay ku jiraan ciyaartoydiisa waxaana inta badan ugu daran xidiga lagu magacaabo Calvert Lewin oo asagana ku macquulsan isla markaana keenay 36 foul asaga lafti ahaantiisa lagu galay taas oo ay kaga faa'iideystaan kooxda uu hogaamiyo macallin Sundaja kubadaha laadadka tooska ah isla markaana ay kaga soo adkaadeen kooxda Liverpool oo isku magaalada ay yihiin si kastaba ha ahaatee xidigaha difaac ugu ciyaara kooxda Arsenal ee lagu kala magacaabo Gabriel Magalhaes iyo Saliba ayaa isku darkooda galay 33 fouls ayay galeen taas oo caqabad badan ku noqon doonto kubadaha iyo Calvert Lewin foulada lagu galay halis noqon doonto difaacyada iyo goolhayaha kooxda Arsenal macallin Mikel Arteta iyo wiilashiisa ayaa wacad ku maray in kulankaani ay adkaan doonaan haddii ay doonayaan inay tartan xoogan ay la galaan horyaalka Premier League dalka Ingiriiska guuleysigiisa kooxda Manchester City dhinaca kale Manchester City ayadan waxaa sugi doona kulan xiiso badan oo aad u adag kaas oo ay ku qaabili doonaan garoonkooda Etihad Stadium kooxda West Ham United ee macallin David Moyes wuxuu noqon doonaa kulankiisii ugu dambeeyay sida ay qolayaan jaraa'idada isla markaana horey loo sheegay inuu ka tagi doono West Ham United macallinka hogaamiya West Ham United ee David Moyes isagan wuxuu haystaa xidiga aad u orod badan sida Jordan Bowen iyo xidiga Mohamed Kudus taas ay kaga faa'iideysan karaan counter attack waana halis ayay ku yihiin kooxo badanna way kaga soo adkaadeen inkastoo Declan Rice bixitaankiisa kooxda aysan lahayn sal fadhiya isla markaana qadkeeda dhexe uu yahay biyo caadi ah oo ay koox waliba ay mari karto balse macallin Pep Guardiola xidigahani rogaal celiskooda counter attack ay caqabado badan ay ku noqon doontaa inkastoo macallin Pep Guardiola isagana uu haysto xidiga difaaca sida Manuel Akanji oo ciyaari kara boos waliba Nathan Ake iyo Kelly Walker waan eegi doonaa labadaas kulan oo la isku diyaarinayo maalinta Axadda koox walibana ay doonayso inay guuleysato ciyaartoyda kooxda Manchester City oo ugu horeeya xidiga lagu magacaabo Phil Foden oo maanta la siiyay abaalmarintiisa taasi ayuu wacad ku maray in ay tahay inaan dhigno record aan weli la dhigin taasi oo noqon karto mid taariikhi ah oo anaga kaliya qaas noqon doono wax dabadina dhigi doono la arki kareenin ayuu wacad ku sii maray waana eegi doonaa wacadka ay marayaan kooxda Manchester City iyo ciyaartoydiisaba si waliba ha ahaato kulankan ayaa ka dhici doona garoonka Etihad Stadium haddii kooxda Manchester City ay adkaatana waxay si raaxo leh ku qaadi doonaan horyaalka Premier League dalka Ingiriiska oo markoodii afraad oo xiriira ay ku guuleysan doonaan oo aan koox kale oo ka dhisan horyaalka Premier League oo aysan horey u sameynin waxyaabaha kaloo laga qorayo maanta kubadda cagta waxaa ka mid ah N'Golo Kante ayaa dib ugu soo laabtay shaxda koobaad ee national teamka France waxaana ku aaminay macallinka xulka Faransiiska ee Didier Deschamps kaas oo kaga qayb gali doona Euro 2024 N'Golo Kante ayaa ku wanaagsan qalbada dhexe ee daafaca xulka Faransiiska isagoo la og yahay markays garab ciyaarayaan xidiga lagu magacaabo Paul Pogba oo xurriyad wanaagsan u siiyo kubad abuurista iyo dhalintiisaba si kastaba ha ahaatee N'Golo Kante ayaa waxa ay haystaan jaraa'idada maanta kubadda cagta inuu dib ugu soo laabtay xulkiisa kubadda cagta ee dalka Faransiiska kaas oo kaga qayb gali doona Euro ka dhici doona Berlin Germany 2024 haddii aan eegno waxyaabihii ugu dambeeyay suuqa iibsiga laga qoray Bruno Fernandes ayaa weli sal fadhi aan lahayn garoonka Old Trafford inkastoo xidigani oo heshiis kula jiro kooxda Manchester United ayaa wuxuu hore u sheegay haddii aysan kooxda Manchester United doonanin inay sii haysato isagana aanan doonanin inuu soo joogo garoonka Old Trafford dhinaca kale Wayne Mike Rooney ayaa sheegay inuu yahay
Bruno Fernandes hogaamiyaha u qalma in xidiga badan oo daayar ah lagu soo kordhiso kuwa aan macnaha lahayn laga saaro garoonka Old Trafford. Dhinaca kale sida la xaqiijiyay Thiago Alcantara ayaa si sax ah u macsalaameeyay kooxda Liverpool isla markaana ka tagi doona xilli ciyaareedka marka uu dhamaado. Xidigan ayaa ka yimid dhankan iyo Bundesliga dalka Jarmalka 2019 wuxuuna kaga soo wareegay kooxda Bayern Munchen balse dhaawac kusoo laabtay xidigani ayaa lumiyay kubadiisa cagta isla markaana boos joogta uu ka heli waayo safka koowaad ee kooxda Liverpool maadaama inta badan uu sareeri lahayn. Dhinaca kale Thomas Tuchel ma uusan bedelin asagana qalbigiisii ama go'aankiisii ahaa inuu ka tagi doono garoonka Allianz Arena ee kooxda Bayern Munchen. Weli wuxuu doonayaa inuu ka tago garoonkaasi isla markaana wuxuu albaabada u furay kooxaha Yurub ee doonaya. Dhinaca kale Klopp ayaa maanta macsalaamay kooxda Liverpool iyo taageerayaasha garoonka Anfield maadaama hore ugu dhawaaqay inuu ka tagi doono dhamaadka xilli ciyaareedkan. Maantana waxay ahayd macsalaameyntiis waxaa u haray hal kulan oo kaliya. Dhinaca kale Cedric Suarez iyo Leny ayaa labadaba ka tirsan kooxda Arsenal isla markaana waxay ka tagi doonaan garoonka Villa Emirates Stadium marka uu dhamaado xilli ciyaareedkani. Dhinaca kale Matip ayaa asagana ka tagi doono kooxda Liverpool halka Massimiliano Allegri kooxda Juventus ay go'aan ka gaari doonto mustaqbalkiisa inkastoo uu qaaday Coppa Italia balse waxay doonayaan inay shaqada ay ka ciyaariyaan waxayna doonayaan inay kusoo bedelaan macalinka lagu magacaabo Diego Motta oo kooxda Bologna u suurtageliyay xilli ciyaareedkan inay kasoo qayb gasho UEFA Champions League inkastoo kulamo dhowr ah ay ka harsan yihiin horyaalka Serie A dalka Talyaaniga. Klopp ayaa asagana ka hadlay aaladda VAR wuxuuna sheegay in xilligan aysan habbooneyn in la joojiyo aaladani ayna noqon doonto in la sii isticmaalo waxaana arrinkaasi ku raacay xidig lagu magacaabo Harry Maguire ee kooxda Manchester United. Isagana wuxuu yiri waxaa wanaagsan in meelaha qaar loo isticmaalo. Waxay noqon doontaa haddii codka u bato in la sii isticmaalo